beelweynta jaamac siyaad oo ka mid ah beelaha dhulbahante si gaarana u degta magaalada laascaano iyo deegaanada hoos yimaada ayaa cod sir ah oo goordhow la helay waxa ay tilmaamayaan in beesha jaamac siyaad ay wacad ku martay in ay difaaci doonaan cabdiqaadir firdhiye iyo maamulka laascaano laga dhisay dabcan maamulkan la yidhaahdo waqooyi bari waxaa wada dhistay beelaha dhulbahante haddaba adigu daawada sidee u aragtaa maamulkan la yidhaahdo waqooyi bari see loo difaaci karaa see puntland iyo somaliland looga difaaci karaa ma cudud ciidan baa lagu difaaci karaa mise caqli iyo maskax baa lagu difaaci karaa maamulkan oo dhexda kaga jira laba maamul oo daris la ah bal fikirkaaga qaybta commentiga inoogu reeb iyo sida u aragtid cod soconayay ku dhowaad 15 sekin oo la soo geliyay aaladda WhatsApp-ka ayaa waxa uu muujinayaa mid ka mid ah cuqaasha waxgaradka iyo salaadiinta beesha jaamac siyaad oo leh waxaan difaacaynaa maamulka waqooyi bari waliba si gaara beel ahaan baan u difaaci doonaa beesha jaamac siyaad waa beesha degta magaalada laascaanood waa beel ka mid ah beelaha dhulbahante cabdiqaadir firdhiye ayaa ka soo jeeda fihimo quujo ayaa ka soo jeeda garaa jaamac garaa ismaaciil ayaa ka soo jeeda ganacsada jabuutaawa ayaa ka soo jeeda rag badan oo saameel ayaa beesha ka soo jeeda garaa jaamac garaa ismaaciil barnaamijyadeennii hore waxaan idinkugu sheegay inuu geed dheer iyo geed gaabanba u korayo sidii uu u difaaci lahaa jiritaanka iyo mustaqbalka maamulka waqooyi bari sababtoo ah xukunka madaxtinimada beesha dhulbahanta ayaa haysata si gaara jufada jaamac siyaad ayaa haysta waan horta taa isla fahanaa in cuqaasha iyo waxgaradka beesha jaamac siyaad hadda ay yiraahdaan waxaan si gaara iyo si dhow iyo si fogba u difaacaynaa cabdiqaadir firdhiye iyo maamulkiisaas waa gar bay u leeyihiinoo waayo kursiga iyagaa ku fadhiya tusaale ahaan beesha bahar samee hadday maanta kursiga ku fadhin lahayd dee garaa jaamac garaad cali bannaanka ma taagnaadeen runta markaan isku sheegno wararka iyo macluumaadka hadda soo baxaya ayaa haddaba waxay leeyihiin beesha jaamac siyaad waxay sidoo kale sheegtay inay cudud ciidanna ku difaaci doonaan oo yaa laga difaacaya waa puntland iyo somaliland puntland iyo somalilandna in si gaara looga difaaca maamulkaas maamulkan waxaa jira qorshayaal waaweyn oo maamulkan loo dejinayo qorshayaashu waa 5 qaybood laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa saddexda ugu muhiimsan سعيد عبد الله دني وحو كفش الميترا كبدن 3 jeer in uu khilaaf dhexdooda ka dhex shido dhulbahantaa wuxuu madaxa isu galiyay labadii garaad jaamac garaad cali iyo garaad jaamac garaad ismaaciil wuxuu madaxa isku galiyay garaad muqtaar cali buraale iyo cabdiqaadir firdhiye wuxuu madaxa isu galiyay fihi muquuje iyo garaad jaamac garaad cali wuxuu madaxa isu galiyay dhammaan garaadadii halkaas ku sugnaa marka laga yimaado nimanka buuhoolda iyo sanaag ka soo jeeda eriyadaas marka laga yimaado beelaha ka soo jeeda sool ee garaadada ah madaxa ayuu isu geliyay isagoo islahaa markii halka khilaaf uu ka dhaco labada dhinac ha kala jabaan maamulkiina burbur ha ku gogoboobo dawladda Soomaaliya arrinka ha ku fashilanto laakiin way u socon weeday qorshaha labaad ee dhulbahantaha hadda ku soo wajahan waxa waaye beesha la yiraahdo jaamac siyaad baa la doonayaa markan in madaxa la isu geliyo dhawaan waxaa dhacay dil oo dabcan ay ka dambeeyeen ciidanka si gaar ah uga amar qaata ninka odayga ah ee ganacsada ay hadda xiran ee la yiraahdo maxamed jabuutaawi dilkaas waxaana loo sheegay qorshihiisa iyo abaabulkiisa bilow ilaa dhammaad inay wax ka ogaayeen rag Saciid Cabdullaahi Dani u dhow kadib waxaa la rabay dilkaas markuu dhaco in ganacsada jabuutaawi uu hub qaato oo maamulka firdhiye uu xabad kala hor yimaado garaadada halka khilaaf uu ka dhasho kadibna halkaas madaxa la isla galo laakiin garaa jaamac garaa ismaaciil ayaa u dejiyay xaaladda u dejiyay wuxuu yiri sidaas miya ahaa ganacsada jabuutaawi oo kaalay taliyihii saldhigga booliisku adna kaalay ninkaan igala wareeg maxaa lagu eedeynayaa dilka halkaa ka dhacay dani hurdadii waa ka tagtay sababtoo ah markaasaa ku leeyahay dani qorshihiisii labaad buu ahaa oo ka fashilmay oo uu rabo inuu ku burburiyo jiritaanka maamulka waqooyi bari dhulbahantuhuna way og yihiin weliba nin la yiraahdo garaa jaamac garaad ismaaciil beesha jaamac siyaad iyagu way og yihiin qorshayaal fara badan oo dhinaca dani ka soo socda oo halistooda wata
oo haddaan laga hortagin xaaladdu meel xun ay gaari doonto taas ayaa waxay keenaysaa marka in dani uu hadba qorshe dejiyo qorshahaas hadduu fashilmay qorshaha koowaad iyo qorshaha labaad maxaa laga dhigi karaa xataa waxaa jirtay in nin taliyo ah oo beesha jaamac siyaad inuu yahay aan u malaynayo kolay dhulbahantu ahaa laakiin beesha jaamac siyaad inuu sii ahaa waan u malaynayaa mise naaleeye axmed ayuu ahaa kolay labada mid unbu ahaa ayuu maalmihii shirki uu dhacayay shirkii aayakatashiga maamulka waqooyi bari oo ay wax isku darsanayeen warsangeliga iyo dhulbahantu ayuu wuxuu sameeyey firdhi ninka la yiraahdana wuxuu sameeyey inuu taliyaha u yeero oo uu yiraahdo 200,000 oo dollar iga hoo hormaris 100,000 oo dollar hormaris iga qabso 100,000 dib baan ka siinayaa waxa la saana ka socda iga soo gabagabeeyay ninka odayga ahaa ee qorshahaas loo dhiibay qorshihiisu u soo waday wuxuu gacanta ka saaray wuxuu ka saaray garaajama gara Ismaaciil wuxuu la waraagay firdhiye arrinka si hoose ayaa looga talaabay sababtoo ah dibashu firdhiye ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Dani isagoo qorshaashiisa way cad yihiin marka maamulkan waa inuu samraa sababtoo ah Puntland waxa weyn abaal weyn ayay u soo gashay maamulkan waqooyi bari qorshahaasna waa uu fashilmay marka beesha jaamac siyaad inay hadda dhahaan waxaan difaacinaa maamulkan la yiraahdo waqooyi bari taas ayaa ku kalifaysa ayaa la leeyahay sababtoo ah qorshayaal walba oo uu dani dejiyo waa ay fashilmayaan marka maalin walba inta loo joogi lahaa qorshe ayaa dani ka yimid oo halistiisa wata waa in laga hortaga maxaa diidaya marka qorshayaashan dani intuusan ba soo abaabulin oo uusan dadka la hor imaan in laga hortago maxaa diidaya taas ayaa la leeyahay waxay ku kaliftay beesha jaamac siyaad in codkaasi group WhatsApp lagu soo dhex tuuro oo banaanka yimaado iyagoo leh waan difaacaynaa cabdiqaadir firdhiye waan difaacaynaa maamulka waqooyi bari waan difaacaynaa caasimadda ciddii qalqal ka samaysa waan difaacaynaa jiritaanka dowladnimadeena waan difaacaynaa ciidankeena waan difaacaynaa xuduudaheena waxaasoo dhan inay yiraahdaan beesha jaamac siyaad anigu aan ku taageersanaya sababtoo ah qabka waxaa la yiraahdaa wuxuu ka bilowdaa midka ugu sarreeya dadka Soomaaliduna watay ku maamaahdo madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jirto garaadada meel ka sarreysa oo la salaaxaya ma jirto iyaga ayaana laga rabaa inay qorshayaasha dani ay ka hortagaan waana kula talin lahaa talooyin dhowrana waa siin lahaa beesha dhulbahanto oo ku aadan qorshayaal fara badan ayuu dani soo wadaa qorshayaashaasi sidaad uga dabaalataan beesha dhulbahante iyaga ayay ku xiran tahay waana arki doonaa xaajadooda halkay ku dambayso iyo halkay ku biyo shubato marka beesha jaamac siyaad inay yiraahdaan waxaan difaacaynaa cabdiqaadir firdhiye daawada adigu sidee u aragtaa bal fikirkaaga qaybta commentiga noogu reeb hadday tahay markii kugu horeysay nagu soo biro subscribe channelkan si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay waxaan ka codsanayaa muuqaalkan aad daawanaysa like saar waa mahadsantiin